زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج تحنا oo inagu tala galnay bisha barakaysan ee Ramadaan aynu kaga hadli doono haddii Ilaahay raali ka noqdo axkaamteeda iyo duruus kale oo ku saabsan fadliga camalka wanaagsan ee bisha Ramadaan lala yimaada uu leeyahay. وعشركeenii koobaad waxaynu kaga hadli doonaa sida ay ku sugnaato bisha barakaysan ee Ramadaan. bishii barakaysan ee Ramadaan baa inoo soo gashay. waxaynu ka hadli doonaa axkaamteeda qodobka ugu horeeya oo ah sida bishaasi ay ku sugnaato. bishu waxay ku sugnaataa yuthbitu shahr Ramadaan biru'yati al-hilaal. bisha Ramadaan waxay ku sugnaataa marka la arko bilashada bisha Ramadaan, walow min waaxidin cadlin, nin caadilo oo keliiba ha arkee, أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، أما صدنك شعبان أي رمضان. والله بضع شردي وي تاريخنا اللي إيجي مايو مهملنا اللي قسومي مايو وحا اللي قسومي يا مركب بيش الله أركو قف عادي لبها أركيه، أما صدنك شعبان أي رمضان ما أنت كل حكتاوا كودي بيش رمضان وي. والله بضع الرمض labadaba daliiladoodii baynu tilmaami doonaa axaadiis saxiixa oo tilmaamaysa. can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala waxau yihi taraa annaas alhilaal, dadkii baa waxay arkeen bishii dhalashadeedii. fa akhbartu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay baan u warramay annii ra'aytuhu inaan arkay. rasuul allahu dadkiina way arkeen, anna waan arkay ayaan ku idhi. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وصومي وأمر الناس بصيامه، تذكينا وحو أمري إني صومان. رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححاه. ابن عمر الهي كرر على النقضي وحو لي تذكي با وحي أركين بشي، أنا قلنا وان أركي تذكي با استسية وطا بشي وطا 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 أنا وان أركي. تبدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيانو إمدبو يدو وحان ورمي إنام بشي أركي. dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay warkii ibnu cumar oo markhaati labaad keen ma odhan iyo dadkii kula arkaye, wuxuu qaatay warkiisii, wuu soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam, dadkiina wuxuu amray inay soomaan. markaa qof keliyahoo muslima oo caadili hadduu arko bishii waa lagu soomayaa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سولك إلهي وحول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. أركتي كو صوم أركتنا كو أفرع، فإن غم عليكم هدي لا إذن كدبوله فأكملوا عدة الشعبان 30 يوما. صدنك شعبان لما يسترع. رواه البخاري ومسلم. النبي وحول عليه الصلاة والسلام أركتي كو أفرع، aragtina ku sooma haddii la idinka daboolana soddonka dhammaystira. marka aragti baa marka hore lagu soomaya oo waa bishii oo la arkay, aragtina waa lagu afuraya waa bishii oo dhammaatay. haddii la idinka daboolo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo daruuro ama caad ay idinka qariyaan
oo aad arki weydaan soddonka shacbaan dhammaystira waa xadiiska loo cuskanayo ee ugu xooga badan leh in aragtina lagu soomayo aragtina lagu afurayo haddii la waayana la dhammaystirayo soddonka sidoo kale haddii la waayo rabadaanna dee soddonkeedaa la dhammaystiraya mar haddii shacbaan soddonkii la dhammaystiray markii la arki waayey rabadaan dhammaadkeeda haddii la arki waayana soddonka iyadana la dhammaystiraya taariikhna lagu soomi maayo muhmalna lagu soomi maayo labadaa midna lagu soomi maayo laakiin aragti ayaa lagu soomayaa aragtina waa lagu ciidaya qaala tirmidi wuxuu yihi waalcamali calaa hada cinda akharu ahli cilmi xadiiska in aragti lagu afurayo qof qura la qaadanayo ayay culimada badankoodu ay ku tegeen qaalu waxay yihin tuqbalu shahaadatu rajulin waaxidin nin keliya ayaa markhaatigiisa la qaadanaya fi siyaami marka la soomayo marka la soomayo waxaa la qaadanayaa nin keliya hadduu arko oo caadila waa la qaadanaya wa bihi yaquul ibnu mubaarig washaafici wa axmed sidaasay ku tegeen waqaala nawowi wuxuu yihi wahuwa asax waa sida asaxay waa caynkaa weye wa ama hilaalu shawaal shawaal laakiin bilashadeeda fayahbutu waxay ku sugnaanaysaa biikmaali ciddata ramadaana 30 yowma inay bisha ramadaan soddonkeedu u dhammaado walaa tuqbalu la qaadan maayo fiihi shahaadatu cadlin waaxidin nin keliya markhaatigiisa la qaadan maayo cinda caamati alfuqahaa sida culimmadu ay u badan yihiin way kala qaadeen caamati alfuqahaa bisha bilashadeeda iyo dhammaadkeeda oo waxay dhahaan bilashadeeda waa la qaadanayaa nin keliya laakiin bisha dhammaadkeeda nin keliya la qaadan maayo washtaraduu waxay u shardiyeen an yashhada calaa ru'yatihi ihnaani dawaa cadlin inay ka markhaati kacaan laba caadiliini iyo wixii ka badan ilaa abathawr sheekha la yidhaha mooyaane fainahu lam yufariq fii dalika bayna hilaali shawaal wa hilaali ramadaan isagu wuxuu ihi lama kala saaraayo bilashada iyo dhammaadka waa isku mid weeye wa qaala wuxu uhi yuqbalu fiihima shahaadatu waaxidin cadl waaxid cadl nin keliyaa la qaadanaya buu labada jeerba laakiin sida jamhuur culamaa ay u badan yihiin waxa weeyaan bisha belashadeeda waxaa la qaadanayaa nin keliya laakiin markay dhammaanayso ee ciidda waa in laba iyo wax ka badani ay markhaati furaan waxay leeyihiin labada jeerba cibaadada loo dadaalaya oo markan hore rabadaan ay bilanaysana cibaadada loo dadaalaya mar hadduu nin quri arkay oo caadila waa la soomaya iminkana cibaadadii baa loo dadaalayaa nin qura la qaadan maayo waa in laba iyo wax ka badan ay arkaan labada jeerba soomkii baa loo dadaalayaa bay leeyihin labada jeerba waxa dhici karta bay maalinta ciidda mid iska jibooday inuu yidhaahdo bishii baan arkay laakiin dee rabadaan looma jiboodo oo qof aan hubini way yar tahay inuu yidhaahdo bil baan arkay sidaa darteed bay labadaa u kala qaadeen waxaana la doonayaa bisha marka ay dhammaato iyo marka ay bilanayso labadaba in lagu dadaalo si loo sugo oo waxaa la doonayaa bilihii ka horreeyey rabadaan in la soo ogaado oo bishii rajab markay bilatay iyo markay dhammaatay bishii shacbaan markay bilatay iyo markay dhammaatay in intaba la ogaado si ay kuugu sugnaato dadaal fara badanna la sameeyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay markaa aada u dadaasho oo culimmadu aada u dadaalaan oo bisha aada loo eego oo dabadeedna markay sugnaato bishii in la arkay dabeedna la soomo markay sugnaato inay bishii dhammaatayna in la ciido haddaba culimmadu waxay isku khilaafeen ikhtilaafu mataalici iskhilaafsan oo waddamadii muslimiintu maadaama ay ballaadhan yihiin kala fog yihiin muslimiintina ay maanta caalamkii ku faaftay dowlad kasta oo maanta jirta dad muslimiina ay joogaan ma mataalicdaa loo eegayaa qolo walba waxa la leeyahay marka waagu u baryo iyo markay bisha arkaanuun ha soomaan oo markay arkaanuun ha ciidaan
mise aragti qura ayaa loo eegaya dahab aljamhuur waxay ku tegeen jamhuur culamaa ilaa annahu laa cibrata biikhtilaafi almataalic inaanay wax ictibaara iyo wax ka soo qaada aanay lahayn mataalicda kala gedisan mataalicdana waxa weeyaan ciddii mar cadceeddu u soo baxday waagu u wada beriyo ayaa la yidhaha intaasaa isku mataalica marna gobolku wada dhaco oo caalamkii iminka wuu kala fogaado dee intaasoo saacadood ayaa la kala horeeya 8 saacadood ayaa la kala horeeya iyo in ka badan marka dee waaraguna waqti uma wada beryayo gobolkuna mar uma wada dhacayo markaasaa dabeedna la yidhi haddaba maxaa laga yeelayaa waagaa aanu wada beryeynin iyo gobolka aanu wada dhacaynin dabeedna jabnu cumar waxay yidhahdeen waxba laga soo qaadi maayo mataa ra'a alhilaal ahlu beled marka ay bisha arkaan dad muslimiina oo waddan ku nool wajaba soomku wuxuu ku waajibayaa calaa jamiici albilaad wadamada kale oo dhan ee muslimiinta ah liqowli rasuul sala allahu calayh wasalam ayaa u daliila suumuu liru'yati wa aftiruu liru'yati nebigu wuxu uhi aragtina ku afura aragtina ku sooma suumuu ku sooma baa la yidhi waa jamac wey suumuu liru'yati aragti ku sooma aragtina ku afura wa huwa khitaab alcaam khitaabkaasi waa caam weeye lijamiici alumma ummadoo dhan ayuu camimaya faman ra'aahu ninka arka ee minhum iyaga ka mida fii ayi makaanin meel kastoo uu joogo kaana daalika ru'yatun lahum jamiica aragti bay u wada noqonaysaa dhammaantood ila nebigu calayhi salatu slam si guud buu ula hadlay ummaddii oo dhan oo isku duuban buu la hadlay markaa dabeedna wuxuu uhi mar haddaa aragtaan sooma markaa mid keliya haddii uu arko meel kastoo uu ku nool yahay wadamada kale oo dhan taasaa aragti u noqonaysa oo muslimiintu waxa weeyaan waa mid keliya wey waa ummatu waaxid diintooduna waa mid allahooduna waa waaxid waa alla keliya ayay caabudayaan sidaa darteed ayaa la doonayaa mar qura inay wada soomaan mar qurna ay wada afuraan markaa jamhuur culamaa iyagu sidaasay ku tegeen culimada qaar baa waxay leeyihiin sida sheekha ikrama iyo qaasim binu maxamed iyo saalim iyo isxaaq iyo sida saxiixa cinda alaxnaaf iyo sida la doortay cinda ashaaficiyi annahu yuctabaru waa la ictibaarinaya waxbaa laga soo qaadayaa bay dhahdeen liahli kuli baladin ru'yatahum beled kasta aragtidooda loo eegaya walaa yalzimuhum ru'yata kayrihim kayrkoodna lagu laasimin maayo aragtida ay arkeen waxay deliishanayaan lima rawaahu kurayb sida uu warinayo kurayb xadiiska axmed iyo muslim iyo tirmidi ay soo saareen qaala wuxuu leeyay qadimtu shaam baan ka imid wastahalla calaya hilaalu ramadaan waxaa igu bilatay bishii ramadaan wa ana bishaam anoo shaam jooga fara'aytu alhilaal leylata aljumca bishii waxaan arkay buu yihi bishii habeenkii jimce ثuma qadimtu madiine ayaan imid fii aakhiri shahr bisha aakhirkeedii ayaan imid fasa'ala ibnu cabaas baa i weydiiyey ثuma dakara alhilaal faqaal mataa ra'aytum alhilaal way waraystay oo bishii bay uga waraystay oo waddankii bay u waraystay markuu warkii soo dhameeyey bal bishiina ka waran goormaa bishii aragteen faqultu waxaan ku yihi ra'aynaahu leylata aljumca waxaanu aragnay habeenkii jimce faqaala wuxuu ihi anta ra'aytuhu maadaa arkay uu weliba sii hubinaya faqultu waxaa ihi nacam aniga arkay wa ra'aahu nnaasu keligay qura maahee dadkuna way arkeen wa saamuu waanay soomeen wa saama mucaawiya oo amiirkii muslimiinta ahina wuu soomay faqaala markaa ibnu cabaas wuxuu ihi laakinaa ra'aynaahu leylata sabti laakiin annagu bishii waxaanu aragnay habeenkii sabti falaa nazaalu nasuumu xataa nakmula 30 ka suuli mayna inaanu soomanaano ilaa aanu 30 dhammaystirno aw naraahu ama aanu aragno faqultu waxaan ku ihi alaa takfinii miyaanay kugu filayn biru'yati mucaawiya wa siyaama mucaawiye aragtidiisa iyo soonkiisu miyaanu kugu filayn faqaala wuxuu uhi laa haakadaa amara rasuulu llahi sala allah alay slm saasuu nebiguna amray oo ah markaanu bisha aragno uun inaanu soonno markaanu aragnana inaanu afurno oo markaa asuumuu liru'yati wa aftilu liru'yati buu yidhi markaa
annagu markaanu aragno baanu soomaynaa markaanu annagu aragnana waanu afuraynaa marka waa labadaa qowl laakiin waxa xoog badan qowlkaa jumhuurku ay ku tegeen oo ah dadka muslimiinta ah mar haddii meel ka mida laga arko inay inta kaloo dhammi ay ku raacaan maxaa yeelay wakhtigan iminka la joogana suuragalba ma noqonayso in muslimiintii oo maanta caalamka kala firidhay oo qaxoonti iyo jab ku dhacay oo meel walba ka dhacday oo caalamka gaal iyo islaam waddan un la yidhaahdo dad muslimiinhi ay joogaan waddan kasta caalamka waxa maanta waddan ka jira waddan kasta dad muslimiin baa jooga dadka muslimiinta ee waddamada gaalada ku noolna suuragal maaha in de bishii ay wada arkaan cid u eegaysa iyo cid u ilaalinaysa midna ma jirto dirqibaabay bisha ku ogaan karaanba oo bil ay arkaan iska daayo oo cadceeddaanay qaar aragba baraf baa ku fadhiya ama saacado yar ayuunbaa meel yaroo iyadoo ka bidhaamaysa ay cadceedda arkayaan bilna hadalkeedba daa marka dee suurtagalba ma noqonayso in qof walba la yidhaahdo halka uu ku nool yahay markuu arka uuna ku soomo qowlka markaa muctamadka ah ee ugu fiican waxa weeyaan in markaa lagu soomo wadamada muslimiinta sida xarameynka oo kale marka laga arko ee ay sugnaato in dhammaan dadka muslimiinta ah oo dham ay raacaan innagana alxamdulilah dee waxa weeyaan waxaynu ku noolnahay muslimiinta bartankiisii baynu ku noolnahay ama caalamka xuduntiisi iyo xarameynkii baynu la mataalicnahay oo aan waxbaba inoo jirin sidaa darteed marka ay sugnaato ee waddamada muslimiinta ah ee inagu wada xeeran ee aynu isku wada mataalicda nahay marka ay arkaan ee ay sugnaato ayaynu soomaynaa waxaana la doonayaa innaga lafteennu inaynu dadaalno oo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimmaduba ay dadaalaan oo dadka ay goor hore u sheegaan inay bishii bilatay iyo inaanay bilan mar hore in la ogaadaa la doonaya taan dadku seexanba in warku caddaado oo iclaamka laga sheego oo wasiirka diinta iyo awqaaftu iclaamiyo oo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay dadaalaan culimmaduna meel kastoo joogaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meel kastoo ay joogaan iyaguna ay dadaalaan maanta telefoonnaa la haystaa isgaadhsiintiibaa fudud qof waliba si yar buu ogaan karaa tvgaad ka ogaan kartaa oo idaacaddaad ka ogaan kartaa oo telefoonkaagaad ka ogaan kartaa oo culimmadiioo meel walba joogto oo aada la xidhiidho ayaad ka ogaan kartaa maanta lama odhan karo bishii maan arag iyo ma ogi midna suuragal maaha lagaa dhegaysan maayo marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina soo gaadhsiiyey oo nabadgelyo caafimaad inagu soo gaadhsiiyey bishii barakaysnayd ee rabadaan marka inaynu ku dadaalno oo aynu u diyaar garowno ayaa la doonayaa wakti kulul baynu ku jirnaa wakti abaara-a baynu ku jirnaa wakti dadkeenna aada u busaaradsan yahay baynu ku jirnaa ilaahay subxana wa tacala waxaynu ka baryanaa inuu abaaraha iyo busaaradda iyo dhibaatada maanta ina haysata in ilaahay subxana wa tacala inaga saaro barakada iyo fadliga bishaa barakaysanee rabadaan markay bisha rabadaan soo gashana arladoo dhan way qabowdaa oo roobka ilaahay subxana wa tacala shubaayo naxariistiisa oo busaaraddaa kacda wax alla waxaa maanta isku wada dhalaalay oo dhan baa kala wada dabca marka ilaahay subxana wa tacala waxaynu ka baryanaa bishaa barakaysanee rabadaan inuu naxariistiisa inagu marnaysto roob caama ilaahay subxana wa tacala inoo shubo naxariistiisa ilaahay subxana wa tacala inoo shubo inagu marnaysto ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa ilaahay subxana wa tacaala innagana waxaa loo baahan yahay walaalayaal maadaama bishii barakaysanee rabadaan inoo soo gashay inagoo aada iyo aada u dhibaataysan baahan waxaa la doonaya inaynu toobad keenno inaynu diyaar garowno inaynu camal wanaagsan ku dadaalno inaynu ilaahay gacmaha hoos dhiganno bishaa barakaysanna soonkeeda aynu ku dadaalno busaaradani way iska tegi iyo dhibtan iyo kadeedkan aynu tabanaynaa markay bishu soo gasho ilaahay subxana wa tacala wuu inaga fududaynaya oo wuu inoo sakhiraya insha allahu tacaala ee inaynu bisha ku dadaalno dad fara badan baa markay bisha rabadaan soo gasho way cawdaan iyadoo aan abaariba jirin iyadoo aan busaaradiba jirin iyadoo sixir bararkani jirin ayay wada caban jireen odhan jira bishii rabadaan baa noo soo gashay annagoon waxba haynin annagoon ku talagelin annagoo maaragtay aan tabaabushaysan maantana maxaad u malayn maantana dad fara badan baa dee cudurdaar iyo soo qadimi doona marka cudurdaaradaasoo dhan inta la iska dhigo waxaa la doonayaa in bishaa barakaysan inaynu u dadaalno inaynu markaa soonkeeda iyo camalkeeda wanaagsan sidaynu ugu diyaar garoobi lahayn sidaynu ugu dadaali lahayn aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno ilaahayna subxaana wa tacala hadduu inagu soo gaadhsiiyey bilowgeedii ilaahay waxaynu ka baryaynaa
inuu dhammaadkeedana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina gaarhsiiyo ayaynu ilaahay subxana wa tacala aynu ka baryaynaa. ilaahayna haynoo fududeeyo bishaa barakaysan ramadaan dembi dhaafkeeda iyo naxariisteedana ilaahay subxana wa tacaala hayna siiyo. wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى